Soomaali waa salaam ayaa meel kastoo dunida joogtaanba maanta codsi baan wataa Soomaali cid kastoo cajaladeeda dhageysata hal la yaabin laakiin sheer gareeyo Soomaalida kale ha gaadho balaaya ka dhacday halkani waxaan Soomaali aqbali karin oo in la idinku dhaarta mooyaane qofna una aqbali karin ayaan halkan ku haya oo soo fasaxaya soo deynaya waa lix warqadood lixda warqadood waxa ku jira waa gudoomiye iyo agaasimo oo reer qura oo Djibouti la wareeg reerkii la wareeg waa invaders dadku markaan soo dhigay halkan aan soo qoray dadku badankoodu waxa way ka fal celiyeen feedback far badan baa laga sameeyay fal celin waxa la yiri waxa ka masuula waa maasan reerka la yiraahdo anigu ahay iyo Ismaaciil Margalo in adeerkay idinka ma ka dambeeya la yiri waxan horta kama dambeeyo Ismaaciil Margalo maasan inna kama dambeeyo waan taaganahay wala taagay Soomaaliyeed maqli waa la falay wax bili aadan oo waxaan ogolaan karaa ma jiro Ismaaciil lama ogolaan karo ma sanna ma ogolaan karo laakiin waa ummad la taagay waxba nagu dhacay marka waxaan u baahanahay in lana doping la nagu sameeyo doping waxa la yiraahdaa kaniisadaha biya dhex yaalo qofka markuu balaayo ku dhacdo ayaa la dabaalsiiyaa caruurta markay dhashaan waa la muquuriya markaas halka uu bogsanaya xageennana wadaado ayaa dadka wax u akhriya marka idinka waxaan iska codsanaya inaad waxaan markaan akhriyo waxaan akhriyaa maanta waa gudoomiye iyo agaasimo waxaan akhriyaa waa dal la tagay oo baabay weeyaan Djibouti kuwa mucaarad la yiraahdo jira Djibouti oo aanu garaaday isagoo mucaarada waxay soo sawiraan meeshay biyo galeen iyo meel biyo mareen iyo qashin iyo gidaafad iyo bulaacad laakiin maxay xukumayaan dalka waa lagu kala tagay maalin dhawood buu Ilaahay afkay ka soo yeeriyay wareerkana ina qabsaday bal soo sheega inta meesha ay joogaan iyo dhulka ay xukumaan soo sheega haba oran lahayda Soomaalidu waxay tiraahdaa naag baaragoysi intay bahal kale nadiifinayso ayuu keedu qurmaa waxaan arkay in dhulkayagii qurma dalkayagii qurun bulaacado wasaarad la hadal qaadi karo meel la hadal qaadi karo oo ka badbaaday reerka ma jiro dhaqaalaha ay ka helaan halkan lama xisaabin karaayo budgetka Djibouti 1 billion ku dhawaad baa lagu sheegaa waxaan maraynayaa half a billion iyaga ayuu galaayo dagaalkii la ascaanoodba ragana maal gelinaya imika adigu sheegi doono waa ragga maal gelinaya way dagaalkii la ascaanood la Ismaaciil Margalo iyo Djibouti wada ragana wadanka ba iska haysto oo iyaga maal gelinaya dagaalkii la ascaanood maal geliyaashoodu halkan yaalaan marka bal ciise uu hurda meelahaas u fadhiyo jaadka cuna waan barjeynayna oo walka masaabiir leeyahay waxa la wuxuu og yahay ma jiro dhowr iyo 10 wasiir baa jira oo ciise ah waxa la waxay og yihiin ma jireen labada saddexda afarta habar awala ayaa ka awood badan ta kale markii la dhaarinayay mid iyaga kamid wuxuu yiri tolkay baan meesha u joogaysaa habar walbaan u joogaa maalintaas maalin in la qabta ahayd laakiin maanta waa too late wadankii waxbarashadii oo dhan waa la tagay oo isagu uu noo sheegay oo ma qaldana laakiin maantaas ayna qabno niraano halkan haddaad gabile u joogto gabile ku noqon laakiin halkan ummad baad u shaqeynaysaa waxa kale oo la yaabay markay waxaan ka dhacayaan Djibouti qoladii cafarta loo oran jiray xagee qabatay haddii ma maasan dalkii sidan u galay cafar aawe ciisii kale aawe maxay u qabani waayeen dalkan gacanteena ka baxay maxaad ku daawanayseen idinku maxaad nimad dalkan leenayno iyo halkeed ku hadlayseen maxaad daawanayseen waa aniga halkan uu soo joogay Ismaaciil Margalo baa mucaarad ku haydeen shakhsiyan laakiin maamulkiisa ma eedaan eegin dalkan la wareegay ma eedaan eegin masiibada lan ka dhacaysa ma eedaan eegin wax walba waa la qaatay idinkuna gidaafad iyo meel khoora iyo warqada meel ku dhacay waxa soo sawiraysay ala kulli xaal waxaan ka codsanayaa saaxiibteyda asxaabteyda meel kastoo dunida joogaanba hawshan inay ila galaan ii sheer gareeyaan comment ka dhibtaan sidoo walba sidoo ula muuqato dhamaan waan akhriyaa qof walba sidoo ula muuqato in hawshan wax laga qaban karayo waxaan idin akhriyaa maamulka Djibouti reerka habar wala yiraahdo reer Gabil anigu isaaq kale aniga way iga ceeb laayihiin oo ma hadal qaadayo sharaf iyo karaamad ayaan u hayaa laakiin kuwan dalkayga la wareegay beediska ee xaafadda isku soo raaco xaafad bay ula wareegeen maamulka Djibouti marka bal xaafad baan u eegaynaa uga wada hadli doonaa hadii la yiraahdo waxaan bilaabayaa qofka koowaad wasiirka waxbarashada iyo qaranka Djibouti waa habarwal wasiirka guryaha iyo magaaleynta waa habarwal gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka waa islaan reer Gabiley waa habarwal
safiirka midowga Afrika waa habar awal safiirka Ethiopia waa habar awal safiirka Japan waa habar awal xogayaha guud ee xukuumadda waa waxa la yiraahdo wasiirka madaxtooyada waa habar awal xogayaha guud ee isgaarsiinta waa habar awal xogayaha guud ee wasaaradda beeraha waa habar awal gudoomiyaha dastuurka Djibouti waa habar awal gudoomiyaha dastuurka Djibouti waa habar awal sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Djibouti waa habar awal gudoomiyaha maxkamadda racfaanka waa habar awal xeer ilaaliyaha qaranka waa habar awal balaaya ka dhacday halka 20 garsoore oo maxkamadda waa habar awal 20 ko habar awal halka waxa jooga wasiir Ciise ayaa maxkamadaha jooga wasiirkaasi waa mid meeshii la geeyo bustaan baa loo dhigaa uu seexdaa marka laga qaadayo baa la soo kiciyaa la yiraahdo meeshii laga qaaday soo kac waxa wallahi yafa wallahi dur ina xasab bahdoon baa la yiraahdo abihi baan garanaya anigu abihi maka ayuu iyaan ku aasnay oo anigu jidda ayaa dadka qaaday markii abihi maalintii maka ku dhintay Allah u naxariiste u hurda meesha la wareegay maxkamadihii tii racfaanka iyo tii kale iyo 20 xaakim iyo baalki xeer ilaaliye la wareegay isagu u fadhiya halkaas u fadhiya u hurda wali gudoomiyaha bangiga dhexe waa habar awal agaasimaha fulinta bangiga dhexe waa habar awal agaasimaha Air Djibouti waa diyaaradda ay Djibouti leedahay waa habar awal okay gudoomiyaha hay'adda IOJ Foundation waa shirkadda uu madaxweynuhu leeyahay oo guriyaha waxba dhistaa gudoomiyaha IOJ Foundation waa habar awal agaasimaha maaliyadda ee IOJ Foundation waa habar awal agaasimaha deynta Djibouti waa habar awal agaasimaha DMB waa boorka qaybka boorka weeyaan waa boorka Djibouti waa habar awal agaasimaha maamulka DMB waa habar awal agaasimaha sharciga SHTD waa xagga sharciga ayuu boorasha u qaabilsan yahay waa habar awal agaasima xigeenka waa habar awal madaxa iibka boorka Djibouti waa habar awal hadii waxay la soo iibinayeen materialka lagu shaqeeyo wiishashkiga waxa markii soo iibinay waa habar awal maareeyaha dikadda shidaalka halkana ugu daran maareeyaha dikadda shidaalka ka soo dego shidaalka waa habar awal maareeyaha xigeenka dikadda shidaalka waa habar awal maareeyaha maaliyadda shirkadda waa habar awal maareeyaha ammaanka waa habar awal qolada ammaanka iyo shirkadda iyo intaas oo dhan waa madaxdii waxaan sheegay intii kale way ka hooseysaa waxa la ii soo qoray kuwaasi waxa la yiraahdaa Cabdulla Saad oo islaanta madaxweynaha ay isku qabiil yihiin jilibkeeda hoose weeyaan ina waxa la yiraahdaa family Mawel waa qoladii inay dhulka gurta doonaysa ee waan la meesha qarxinayaan waa kuwaas intuba waa iyaga dikadda shidaalka geligeedaba jilib baa u soo shaqo tagay family Mawel weeyaa la wareegay waa ko aan ku soo socda agaasimaha hawada Djibouti waa habar awal agaasimaha dalxiiska Djibouti waa habar awal agaasimaha ADDS oo ah xafiiska bixiye qandaraashada waa habar awal agaasimaha CIRBEN waa habar awal agaasimaha shaybaarka dhexe waa habar awal agaasimaha shirkadda guryaha waa habar awal bariisuga waxaan sheegay waa madaxda umika gudoomiye madaxdu ma sheegay shaqaalihii kale way noo dambeeyaan waa dooseegan shaqaale hoosaadku laakiin imika waa agaasime iyo madaxdu waxaan sheegay gudoomiyaha degmada Bowlhouse waa degmo Djibouti kamida waa habar awal agaasimaha miisaaniyadda qaranka dhan miisaaniyadiisa ninka agaasimaha ka ee haystay waa habar awal bankina waa kuwa haysta iyo miisaaniyadina waa kuwa iyaga haysta agaasimaha ABIC waa shirkadda waa meel baan maleynaya muhiima waa habar awal agaasimaha amniga guud ee Djibouti waa habar awal kormeeraha guud ee qaranka waa habar awal agaasimaha miisaaniyadda iyo agaasimaha masiibooyinka iyo khatarta waa habar awal maareeyaha guud ee dukaanada waa dukaanadii xataa waa la yimid waa habar awal agaasimaha guud ee dukaanada kormeeraha waxbarashada qaranka waa habar awal kormeeraha EBS waa habar awal xogayaha guud ee UNFO waa habar awal agaasimaha maamulka hay'adda UNFO waa habar awal
ديريكتيركا مادر اند تشيلدرن وهبروا ديريكتريسا نيرسينج اند دريال وكون عروت عاناي وحسيان مالينا وهبروا ماريها جرونك وهبروا agaasimaha waxbarashada asaasiga waa habar wal maamulayaasha dugsiyada waa 727 ba habar wal 17 waa habar wal agaasimayaasha jaamacadu waa 6 waa habar wal jaamacadaha 6 waa habar wal gudoomiyaha ururka basaska waa habar wal agaasimaha mashruuca manfo waa habar wal waddankani aan idin sheegay waa Djibouti mana degaan 1 kilomitir dalka kama degana bal dhibaatada inta leeg waddanka ka taagan baan rabnaa inaan isku soo noqono oon akhrino shaqaalaha ka hoosaadka maanta waa niga arkayo waddankii demel la qaato male waa bulaacad shirkad walba meel walba maxkamadda waa la wareegay waad aragteen shidaalka boorka shidaalka gabigiisa waa la wareegay oo ma jirto cid kale oo ka shaqeysay waxa kaloo lala wareegay waxbarashadii oo waxa laga keenaya dadka gabiile baa laga keenaya waxbarashada lala wareegay dalku intu sidaa noqonayo xagee baan ku maqran ciiso halkee lagu maqran anu ma garanay meesha lagu maqran imikana waxaad ka dhigteen ma maasan baa dalka bixiya maasan iyo isaaq baa ku heshiiyey war isaaq anaga waxba naga dhaxayna habar wal waxba naga ma dhaxayaan habar wal waa kuwa dhulkeygii iibiyay anaga dhulkii maasan ka laga kala laayo iibiyeen hal qof oo ku shaqeeya dhulkooda ma jiro وكو دبر كتوقت اسماعيل بدقله وايغون مصيبتني دلكني ku dhacday gurmad baa loo baahan yahay anigu waxaan codsan lahaa anigu lacag kama rabo ismaaciil badgale mishaarna kama rabo inuu iga shaqaaleysiin aan hawsha wax ka qabto taasoo codsanay inaan waxaan wax ka qabto waxani waa too much for you way kugu fara badan tahay dhibaatadani waxaad ka qaban karaysaa waa yarta waxaan u baahanahay dad active fadhiig cusub oo waxaan wax ka qaban kara oo nimanka boorasha haysta wax ka qaban kara ninka xaddi iyo nin kale oo isagu jooga 7 ilaa maanta waxa way burqiba ku noqday boorasha Djibouti oo lacagta ka gurta dadka oo shaqada la qorayo la yiraahdo goshay baa la yiraahdaa goshay ragga in wax laga qabtana horta waa loo baahan yahay waddankan rogmadayna in wax laga qabto waa loo baahan yahay marka saa darteed anigu waxaan codsanayaa in aan shaqaale ku noqdo adiga oo gacan yar ku noqdo mishaarna uma baahni أن دلكن وحكا قبنون وقرمنا أيام جعلان لها أنا وأنا دي السلامة يا صومالي آد بانيسو السلامة